madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu hor yimi labada gole dastuuriga isagoo uu awood u siiyey dastuurka qaranka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa 9 farqadiisa 6 xarafkiisa ba in uu kalfadhiga labada gole madaxweynuhu uu ka jeedin karo khudbad sanadeed saaka haddana soo koobo madaxweynuhu waxyaabihii uu ka hadlay waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa in la dhiirigeliyo wax soo saarka in la nafaqeeyo xoolaha oo la tayeeyo in kor uu qaaday 4 sano ee uu xukunka hayay shaqo abuurka dalka oo in badan laga cabanayay shaqo abuurka taasoo uu 930 uu kor u qaaday sidoo sheegay inuu miisaaniyadda qaranka ka dhisaan 98 mashruuc sanadkan ay u qorshaysan tahay inay ka dhisaan 122 mashruuc waxyaabaha ugu muhiimsan sanadkan miisaaniyadda khudbadda dastuuriga madaxweynaha ku jirtay waxa ka mid ah oo la wada sugayay dadkuna ay u dhagtaagayeen gubashadii suuqa waaheen iyo qabsoomidda doorashooyinka isku sidka doorashooyinkii madaxweynaha iyo golaha guurtida iyo doorashadii xisbiyada qaranka markaan u imaado suuqa waaheen madaxweynuhu si fiican buu uga hadlay wuxuu sheegay inay dad gaaraya 3673 qof oo muwaadiniin ganacsigooda ay wax ku waxyeeloobeen dadkaasoo hantidii ku baabaaday uu ku qiyaasay inay u dhaxaysay 480 ilaa 480 oo dollar ilaa iyo 370 dollar inta u dhaxaysa ay hantidaasi ku gubatay intooda badanna loo celiyay qaybo kamid ah ama dhammaan lacagta intaas la gaarsiiyay muhiimka ugu weyn aan maanta ka hadlayno waxa weeyaan doorashooyinkii isku sidkanaa hore dalka uga dhacay doorashooyin la mid ah iminka taagan oo saddexda doorasho sidii loo gudagelayay loo qaban lahaa oo madaxweynuhu uu sheegay in awoodooda haddii ay ka baxdo si guud la isugu iman doono waxay daba socotaa usun baan aaminsanahay taasi tii hore ee ay magxabaddu jidaysay 16 bishii koowaad ay muwaadiniintu u gudbiyeen codsiga in ururada la furiyo asxaabta qaranka in stakeholders ku heshiiyaan iyagoo ka mid ah saddex xisbi qaran xukuumadda golayaasha qaranku wax wada ogol lagu wada yahay in lagu dhameystiro ama 13 November hal qabto doorashada madaxweynaha ama 28 December hal qabto doorashada xisbiyada ama June hal qabto golaha guurtida waa in dhammaan doorasho lagu kalsoon yahay dhammaan dalka ka dhacda waan bogaadinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland saaka waxay ahayd khudbaddii ugu dambeysay muddada uu xilka hayay 5 sano dastuuriga ahayd uu xilka hayay khudbaddiisii ugu dambeysay khudbaddii shanaad mar labaad iyo mar saddexaad waan bogaadinayaa shacabka weynaha jamhuuriyadda Somaliland